maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimahan soo noqnoqonayo oo hiiraan waxaa jiro caqabado badan in ay ka timaado qabaa'ilada degan hiiraan hal qabiil ka mida maamulka hirshabeelle sida aan wada ognahay waa maamul ku imaaday si dastuuriya sharciyana doorasho ah ma aha maamul ku imaaday xoog maquunin iyo xabad waxaa jirto baryahan hiiraan inay ka socdaan cali guudlaaba ma imaan karo hiiraan cali guudlaaba ma soo degi karo diyaaraddiisa waa soo ridaynaa waxaan rabaa reer hiiraan inaan xasuusiyo waa hal qabiil ka mida inaan xasuusiyo cali guudlaaba ka hor hirshabeelle waxaa soo maamula madaxweyne cali cabdulaahi cosoble waxaa ku xiga madaxweyne waare qabaa'ilka u badan shabeelle dhexe qaf ka mida kama soo horjeesanin labadaas maamul gabartoodaana kamay hadlin way taageereen way karaameeyeen wayna la shaqeeyeen madaxweyne cali guudlaaba horta waxqabadkiisa waa la ogyahay isagoo madaxweyne ku-xigeena uu meesha joogo madaxweyne waare hirshabeelle waxay ku dhisnayd cali guudlaaba biyo baxa cali guudlaabaa ka shaqeeyey eerboorada cali guudlaabaa ka shaqeeyey ciidan cali guudlaabaa ka shaqeeyey maantana waxaa jirto in la yidhaahdo cali guudlaaba beledweyne ma imaan karo ayaan daro qabiilkaas beledweyne degan ee xawaadlo la yidhaahdo dadka la degan hal qabiil uu heshiis la yahay amba nabadi kala dhexayso kuma jirto daraatoo u dambeysay waxay isku dhaceenay rag iska dhameeyeen dir reerow xasan waa haysiyaa waa la dagaalaa jajeelo dhinacuu ka haystaa gaaljecel dhinacuu ka haystaa makane qof xawaadle mataqaanaa uu heshiis leeyahay ma jirto okay qabiilka waxaa la rabaa hadday dad ku jiraan mataqaanaa aan dadka la heshiinayn inuu leeyahay marjacaasoo ah dhaqan waxaa la rabaa xawaadle wuxuu haleeyo marjac dhaqi kara in la helo dhaqan ma laha marjac ma laha dad oo mataqaanaa maanta waxay haleeyaano intii gobol soo galo dadka lasoo fariisto dhaqi kara maaha haddii aan ka hadlo mas-uul goodax 2002 alifkii magaaladan muqdisho markaan imid wasiir goodax wuxuu ku dheganaayay ilaahay ha xafidee madaxweyne shariif sheekh axmed wuu ku duulaan ku ahay asoo la safar ra-iisul wasaarihii markaas dalka joogay ee cabdiweli cali gaas dowladdaas waa dhammaatay madaxweyne xasan sheekh madaxweyne noqday goodax dowladda uu ka mid ahay hal mar intuu dowladda ku jiray malaa'igu ahaa hal mar muu hadlin xilka hadduu xasan ka qaaday goodax wuxuu bilaabay xasan sheekh maxamuud saamwaay xasan sheekh maxamuud dhulow dhacay xasan sheekh maxamuud intuu ka dhacay xasan sheekh maxamuud intuu ka yaalay in goodax laga nasabsan yahay waxna la xeerinaayo qabaa'ilada soomaaliyeed dad isku wadi karane ay abgaal yihiinaa rabaa maanta inaan ka caddeeyo goodax shariif sheekh axmed oo ku dhegay madaxweynihii ku xiga abgaaluu ahay ninkaan shalay in adeerkaa shariif fuucay amba qabiil looma fiirin ayadoo wax la xeerinaayo soomaali dhaqankooda la xeerinaayo ixtiraam iyo karaamo loo haayo xasan dowladdiisa wasiiruu ka noqday wasiirkii markii laga qaadanay madaxweynihii burush xaarle dusha ka saaray maanta wuxuu ku dhegan yahay cali guudlaaba war adiga yaa ku dhaqaayo yaa mataqaanaa gogol lala galaa yaa raggan la fariisto yaa la xeertamaayo cali guudlaaba diyaaruu yahaye bal qofka cali guudlaaba intii la fariisto wax meel la dhiga lahay xawaadlow iska soo saara reerka waa inuu isceshan karo reerka waa mid hadduu baxo ka kale inuu soo qaban karo aawi dhaqankiini aawi siyaasiyiintiina ma goodax uu kasoo biyo shubtay dadka aflagaadeynaya war hiiraan
ummadda kula degan marka hore wax la soo wadaag markaas shabeelle dhexe u soo gudub madaxweyne cali guudlaawe nin ka fiican oo hirshabeelle madaxweyne ka noqon lahay ma ka dhalanin laba qabaa'iladan joogo waa nin diinta yaqaano waa nin aqoon leh waa nin ummadda karaameeyo waa nin qofka cirada leh iyo qofka caruurta isku si u dhageysto waa nin bini'aadanimada yaqaano waa nin dadka qaar ee deegaanka hiiraan ka soo jeedo ay wada jecel yihiin bal qabiilkaanow afgaal iyo af islaan mid hal idinkugu imaado hal mid isu raaca waxaa tireen waa go'aynaa war hal qabiil intuu ka go'i karaa hiiraan waa lagula leeyahay jajaalaa joogo habargidiraa joogo shiiqaalaa joogto reero xasanaa joogto diraa joogo makanaa joogo baadicaddaa joogo gaal jecelaa joogo intee lagaa aadaa keligaa waxaa la rabaa leesma huraayo ee waxaa la rabaa in wax laysla dhaqdo dad ishuraayo maniini aan wax isla dhaqano hadda ka horaa waxaa la yidhi 4 odayaa meel soo wada fadhiisatay 4 oday ka mid aha duceeyey wuxuu yidhi ilaahayow abaarta barwaaqo noogu bedel haddana wuxuu yidhi ilaahayow colaadda nabad noogu bedel haddana wuxuu yidhi ilaahayow cudurka caafimaad noogu bedel haddana wuxuu yidhi ilaahayow colaadda nabad noogu bedel 3 oday 4 oday oo kale waxay dhaheen waxaa sheegaysid waxba kama jiraan haddii abaarta barwaaqo isku bedesho annaga waa ugaarsanaayo neefkaa soo dilnayaa ka gadaynaa mid wuxuu yidhi waxaan leeyahay hal faraskayga waxaan kiraystaa xilliga colaadda haddaanan la isdagaalin yaa faraskayga iga kiraysanaya mid wuxuu yidhi dadkan dabiibaa haddaysan dadka cudur u la'anin ay dadka wada caafimaadaan aniga yaa daaweynaa marka xawaadla warkooda waxaa waaye haddaan annaga waxba qabanaynin oo annaga madaxweyne noqonaynin maamulka hirshabeelle gow iyo gash ma leh waxaa waaye maamulka hirshabeelle waa dhisnaanaa hal qabiilna ma loo dhutinaayo horaana loo soconaa cali guudlaawaana madaxweyne ahaan doono cali guudlaawa qabiilkiisa ma keensan ina adeerkiis ma keensan ina abtigiis ma keensan dastuuriyuu ku imaaday 32 qabiil ka badanaa hirshabeelle degto qabaa'iladaas baarlamaan ay fariisteen cod ay ku doorteen uu cali guudlaawa maanta madaxweyne ku yahay beri meeshaan shiidlaa madaxweyne noqon karo makanaa noqon karo reero xasanaa noqon karo habargidiraa noqon karto shiiqaalaa noqon karto qof ku dhagaayo ma jirto ninka madaxweyne ka noqdo nabadaa lagula shaqaynayo iyo maamulkaas inuu maamulka hirshabeelle waa ciqaaban yahay reeruu u ciqaaban yahay waxaa waaye maamulka hirshabeelle cid uma ciqaabnaan doono maamulka hirshabeelle horuu soconaa wuu dhaqaaqaa xafidullaahi waxaa jooga cali guudlaawe ummadda isku dhaqaayo xawaadlo garab siinaayo qabiil kale garab siinaayo nin kastoo soomaaliyeedoo soo muto maamulkaas ka midana u taagan har iyo habeen waxaan la hadlaa fariin u diraa jenaraal xuud war noolow ummadda nabad ula noolow ninkaa dhehaysid diyaaradan ka soo ridaa meeqa jenaraal iyo meeqa saraakiilaa garabkiisa howlo dhashay oo ku qaraabaha ku talo ku heeba laakiin annaga heebtayna kuma ciyaarna waxa dowladnimada dowlad ku noolaana cali cabdullaahi yaa joogay ilaahay ha karaameeya waa la soo shaqaynay waaraa joogay waa la soo shaqaynay war xawaalow ilaahayga ku idin abuurtay inta ka cabsatiin waara intaasuu maamul hayay muxuu qabtay waxaanuu qabtay ee cali guudlaawe naga hor leexiyey na soo dhaha bal muxuu qabtay waare war maamulka aan wada dhisano madaxweyne nabad rabo oo maamulku inuu hore u socdo rabo aan meesha joogo maamulka aan wada dhisano hal qof oo ma taqaanaa nin walba oo muxuu dhahay xildhibaanka wuxuu yiri neefka xoolaha wuxuu aamusay buunshada intuu afka ku hayo xilka markuu hayo wuu aamusay wasiir goodax ma hadlo dad macaayo maamul wax kama sheego
maalinta xilka laga qaadan xishood ma laha waxaa waaye waxaan leeyahay qabiil aad heshiis la tihiin beledweyne ma joogo hiiraan ma joogo maamulka hiirshabeellena kama mid ah kuwii deegaanka kula ahay aad maalin kasta ku duuloosiin ummadda kahara ummadda dhaafa ummadda wax la wadaaga cali guudlaawe maanta wuxuu diyaar u yahay inuu gogol idinla galo waxaa la timaadeen qofka idin dhaqi lahayd oo gogol la geli lahaa qof idin dhaqdo isma ceshataa tihiin qof idin dhaqdo oo gogol lala galo ma haysatiin haddaa madaxweyne shariif sheekh axmed soo caysa oon lagaa daba hadlin ood la soo dagaashay oon lagaa daba hadlin aad madaxweyne xasan sheekh soo dhaantay oon lagaa daba hadlin oo lagu karaameeyey oo weli madaxweyne xasan sheekh uu xishoodoo yidhi kursigan adaa madaxweyne ka ah ee kan xawaadlo madaxweyne uga dhig abgaal adaa mataleen aad weli cunaysa aad lafa dhaamaysa aad sidaa rabta u caynaysa haye waa lidinla soo shaqeeyey cali cusbal waa lala soo shaqeeyey waa kaasaa nabadda u taagan waaro waa lala soo shaqeeyey waxba lagama halaynin maxaa jiro waxaad tirsanaysiin ummadda gogol la soo gala dhaqan aan leenahay geed hoostiisa la soo fadhiista haddii kale aysan ahayn qof bini aadan xoog laguma maquuniyo aflagaadana laguma maquuniyo iyo caay waxaa la rabaa xawaalow wixii idin dhaqi lahay ilaan qabiilka waxaa laga rabaa hadda qabiilkayga hadduu hadda nin ka mida u waxaleeyo dhaqan uu leeyahay dad waxaa joogo qofkii la caayay u hoyanaayo sabeen ku xiraayo wixii dhammaynaayo marjacaan leenahay aawo marjiciini dadaan isdhaqi karin dadkiina cunaayo see looga badbaxaa marjiciina aawan yaa dadka gogol la soo gala yaa lidinkaga dacwoodaa dowladnimada ha shaqayso dowladnimada inay shaqayso aa la rabaa lama rabo hebelaan diyaarad ka soo ridaa iyo hebel beledweyne ma imaan karo beledweyne ma aha deegaankiina beledweyne intaasoo qabiila ku nool oo deegaan u yahay dowladnimadana u hoggaansan madaxweyne cali guudlaawe nabad kala dhexaysaa wanaag kala dhexaysaa ixtiraam kala dhexaysaa adinka yaa heshiis la tihiin shalay aad dagaal ma oga tihiin daraad diraa is haysateenoo 9 qof idinka dishay yaa heshiis la tihiin ka horeeroo xasanaa ku dheganaydeen yaa heshiis la tihiin war waxaa la timaadiin dad dhaqan leh oo gogol lala galo oo waxaad tirsanaysiin laga dhagaysto si lidinkugu garaabo walaalka hadduu waasho wax cishtaa la rabaa saa lidinkugu garaabaa saa lidinkugu maciinaa marjacba ma lihidiin dhaqan dambe oo waxaad halaysiin dhaqaya aawa ma lihidiin wax dhaqaay waa lidinka laayahay cali guudlaawe maanta wuxuu ka degay beled jowhar wuxuu soo saaraa aqalka sare horuu u soconaa shaqadiisa ma joojinayo 8 kursiyaa ku leedihiin maamulka hiirshabeelle 8 kursi doodka saarta meeshaa rabtiin la mara nin dan kale ma jirto waxaa waaye ismuurtu ay hays haleyninay soomaali hore u tiri aan maamulkaas aan naga wada dhexeeyo aan wax isla xeerino halays ixtiraamo halays karaameeyo madaxweynaha allaha dhowro hala dhaafo halala shaqaysto kuwiina waa lala shaqaystay berri kii yimaadana waa lala shaqaynaa cali guudlaawe reerkuu ka dhashay nin walboo yimaado waa la shaqaynaa nin walba ee gobolkaas deegaan ku leh ee soo muto inaan la shaqaynaa diyaar u nahay keena waxaa leeyana dhaqan loo noqdo aan leenahay siyaasi loo noqdo aan leenahay marjac aan leenahay dad iscishtaanahay dad waxay halayaana dad gacanta mariyo dadka sameyn ku xiro lahaana la imaada intaas la imaada fariintayda ugu badan waxay ku socotaa wasiir goodax nin cali guudlaawe ku heeba kulama dhawaaqtamaayo shalay gabartayna kulama hadlin hadda ka hor aniga adigaa waxaa isla fadhiisanay dood wadaag adoo xasan sheekh ku dhagan maantana anaa kuu fadhiyo
maanta anaa kuu fadhiyo dhawaqaaga waa nugu fogaaday adii jenaraal xuud waa nugu fogaateen ma fahantay diyaaradaa la soo ridaa iyo diyaaradaa laga dhacaa iyo diyaaradaa laga yeelaa diyaarad calan guudlaawe saaran yahay nin soo ridi kara ma jirto dowladdan hadda shalay aa la shaqaynaysa maanta mucaaradaa ku tahay tii ka horreysaa la shaqaynaysa marka xilka lagaa qaado mucaaradaa ku noqota tii ka soo horreysa sidoo kale iskaga har siyaasi matiida siyaasadda iskaga har siyaasiga siyaasiyiinuu ku xeer noqdaa ee dadka ma xoqdo marka reer hiiraanow adinkana waxaa laydinka rabaa qabaa'ilada la degan xawaadlahan la hadlaa adinkana waxaa laydinka rabaa inaad xornimo afkiina xor ah aad ku hadashaan dhibaatadan beledweyne ka jirtana aad ka hadashaan madaxweynihiina allaha xafidee cali guudlaabane beledweyne waa imaanaa dadka soo dhaweynayana waa adinka ilaahay ha idin karaameeyo ilaahay ha idin sharfo cali guudlaabe wuxuu ku soo wajahan yahay beledweyne insha allahu tacaala guul iyo gobonimaanu u rajaynaa khayr badan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu